iyadoo ay xiisadu halkii ugu sarreyso marayso ayay ciidamada turkiga waxa ay bilaabeen dhoolatus milatari oo ay la sameynayaan milatariga waqooyiga Qubrus sida uu xaqiijiyey ku-xigeenka taliska milatariga Fuad Okta waxaanu sheegay in ammaanka gobolkooda ay ahmiyadda koowaad siinayaan. haddaba baaxad intee leeg ayuu gaarsiisan yahay muranka Giriiga iyo Turkigu? Cabdiraxmaan Xadaana waxa uu ka faalooday arrimaha muslimiinta. su-aashaas ayaanu ka jawaabayaa. cabdi xaafid dagaalku wuxuu bilaabmay xilligii waxa weeyaan Cuthmaaniyiintu ay qabsadeen waxa weeyaan Istanbul oo xilliga Giriigu maamulayay ama Yurubta waxa weeyaan Kristanka ee xilliga caasimad bay u ahayd Istanbul. kadibna haddana Cuthmaaniyiintiba dib looga qabsaday Istanbul oo de waxa weeyaan waa tii la kala daadiyey khilaafadii Cuthmaaniga ahayd 1922 iyadoo khilaafku uu guun yahay ayaa 1924 haddana Qubrus la isku qabsaday. Qubrus 3 meelood oo meel ahaan ayuu Turkigu awood u yeeshay waayo Turki baa kasoo jeeda xagga labada kalena Yurub ayay markaasi ay la socdeen. iyadoo heerka ay taagan tahay ayaa khilaafkii wuxuu aad u soo xoogeystay xilligii Suuriya dad fara badan ay ka soo qaxeen dabeeto ooda ay soo jabiyeen. waxaynu ognahay Giriiga iyo Turkigu inay leeyihiin xuduud bariya iyo xuduud bada. kadibna waxaa timi markaa khilaafka kaloo imika ugu weyn oo ah khilaafka badda gaasta laga helay ee badda dhexe taasoo uu leeyahay Turkigu anigu awood baan ku qabsanayaa oo mar haddii Cuthmaaniyiintii laga adkaaday xilliga baddii oo dhan la siiyey Giriiga maanta ana awood u leeyahay inaan soo ceshado gaastayda iyo baddayda waana ta uu Liibiya kula heshiiyey in waxa weeyaan baddiisa iyo gaastiisa uu soo ceshanayo. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo madaxweynaha midowga Yurub Charles Michel ayaa telefoonka kaga wada xaajooday muranka u dhexeeya labada dhinac. labadan dal waxa ay xubno ka yihiin ururka NATO. haddii haddaba ay xaaladdu faraha ka baxdo oo ay ku dhawaato inay labada dal faraha isa saaraan dalalka xubnaha ka ah NATO maxay yeeli doonaan? Foosiya iyo la soo degan London kana faaloota arrimaha caalamka ayaa eegaysa jawaabta su-aashaasi. umalayn maayo xaaladdu inay faraha ka bixi doonto oo isku dhac military u imaan doono. horta labadan dal waxay NATO xubno ka noqdeen isku waqti bishii February 18 sanadkii 1952 ayay ku biireen NATO-ga. dan weyn baa ugu jirta NATO-ga in ay xaaladan ama arinta dhex taala Turkiga iyo Giriiga in si wanaagsan lagu dhameeyo oo wada hadal ku jiro. NATO-gu iyaan dhaweyto wuxuu taageeray Turkiga markii ay ciidamadooda ay geeyeen waqooyiga Suuriya si ay xuduudooda uga ilaashadaan jabhadaha Kurdiyiinta. marka xeer baa jira oo qodobka 4 dalalka xubnaha ka mid ah NATO-ga ay dhigaya in haddii dal la weeraro ama dalkaas ammaankiisa uu khatar galo in wadanada kale oo NATO-ga ka tirsan ay caawiyaan ama ay taageeraan. marka xaqaas ama rightkaas ayay isticmaaleen Turkigu markay Suuriya galayeen. Faransiiska ayaa iyagu meel adag iska taagay muranka u dhexeeya labada dhinac waxa aanay taageereen Giriiga. xiriirka Turkiga iyo Faransiisku muddo ma uu wanaagsanayn. halkii ayay wax ka xumaadeen? waa kan mar kale Cabdiraxmaan Xadaana oo eegaya jawaabta su-aashaasi. khilaafka u dhexeeya Faransiiska iyo Turkigu isagu wuxuu bilaabmayaa uun gaasta laga helay badda dhexe ayaa waxa uu doonayaa Turkigu inuu isagu la soo maro si halka uu Yurub ugu tallaalo. halka Faransiiskuna uu doonayo inuu Israa'iil iyo Giriiga iyo Qubrusta Giriiga raacsan inay iskaashadaan kadibna halka ay ka sameeyaan haamo halka Yurub laga soo geliyo. laakiin khilaafku wuxuu aad u sii xoogeystay markii Liibiya wuxuu aad u sii xoogeystay markii Faransiisku uu taageeray Kurdishka jooga Suuriya. markaasuu Turkiga iyo Faransiisku khilaafkoodu aad u xoogeystay. waxaynu ognahay inuu Faransiisku maanta uu matalayo Yurub sida Jarmalkuba uu matalayo laakiin Jarmalku uu ka siyaasad furan yahay. Faransiisku wuxuu isbidayaa hinaaso oo kale ayaa ku jira uu leeyahay Turkiga oo imika cusub ayaa kaala wareegaya Afrikadii aad gacanta ku haysay muslimka ahayd ee u dhaxaysay waxa weeyaan groupka waxa weeyaan mesela Senegal iyo Algeria iyo Liibiya iyo dhammaan meelihii uu maamuli jiray oo dhan taasoo markaa uu markastaba ka dagaalamayo Faransiisku inuu awood badan ku yeesho gaasta halka ka soo baxaysa si aanu xoog badan ugu yeelan halka. Turkigu waxa uu muddooyinkii u dambeeyay ka dhex muuqday dalal badan oo caalamka ku yaala oo u badan Afrika iyo bariga dhexe isagoo gariyay dhaqaale iyo hawlo milatariba. xiisadda ka aloosan Liibiya ayaa koow ka ah meelaha haddaba ay caalamka isha ku hayaan waa Liibiya iyo Yemen. Turkigu awood ma u leeyahay inuu muruqiisa ilaa halkaasi fidiyo? waa tan mar kale Foosiya iyo la soo ka jawaabaysa su-aashan. waan u malaynayaa Turkiya waxay ka mid tahay dalalka military ahaan ugu quwadda badan caalamka. dhawaan waxay samaysteen hub casri ah sidoo kale gantaalo ayay ka iibsadeen Ruushka.
waxaa kaloo jirta in iminka wadaniyadii ay kusoo badanayso turkiga siiba nationalismka wax la yiraahdo waxaad moodaa oo kale in islaamiyan ay doonayaan inay soo celiyaan casrigii ay lahaan jireen oo taariikhda ay caalamka ku lahaan jireen siiba oo ahaan jiray dee cahdi alcuthmaaniyiin ama waqtigii cuthmaaniyiinta. dadka ka faalooda arrimaha turkiga ayaa marar badan waxa ay sheegaan inuu madaxweynaha turkigu doonayo inuu soo celiyo taariikhdii cuthmaaniyiinta ee dalkaasi lahaa, isagoo oo dhinaca hubka iyo weliba dhaqaalaha iyo weliba dhinaca tiknolojiyadana intii uu talada dalka hayay laga gaadhay horumar aad u weyn. tallaabooyinka kale uu qaaday Erdogan ee isha caalamka kusoo jeediyey waxaa ka mid ahaa markii uu dhismaha Hagia Sophia oo ahaan jiray mar kiniisad marna masaajid uu mar kale u bedelay masaajid lagu tukado.